dagaal aad u xooggan oo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka Yaaq Bariweyne ee gobolka Shabeellada Hoose iyo sidoo kale xubno kala duwan oo iyaguna deegaankaasi sheegtay inay difaacayaan ayaa halkaasi ka dhacay. dadka halkaasi dagaalka kaga qayb galay waxaa ka mid ah rag maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil toogasho oo uu ka mid yahay duqow iyo sidoo kale rag kale oo maxkamaddu xukunno kala duwan oo dil toogasho ah ay ku riday nolol iyo geeri in lagu qabtana maxkamaddu kal hore ay amartay. dagaalka ayaa waxa uu socday sida xogaha ku helayno daqiiqado waxaana wararkii ugu dambeeyay halkaas ay ka helaynay ay sheegayaan in dagaalka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo kala gaaray dhinacyada. wadani duqow oo goordhow hadlay waxa uu sheegay in dagaalkaasi khasaare xooggan ay ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaas ku sugan wuxuuna sheegay in 4 askari ay ka dileen 5 ay ka dhaawaceen hal askari oo dhaawacna laga qaatay dadka halkaas ku sugan oo dagaalka qaybta ku ahaa sida wararka ku helayno. dagaal aad u xooggan ay halkaas ka socda maalmihii la soo dhaafay dowladda Soomaaliya howlgalo ballaaran ay ka waday Yaaq Bariweyne oo lagu baadigoobayo ragga dowladda Soomaaliya gaar ahaan maxkamadda ciidamada ay xukuntay in la soo qabto nolol iyo geeriba balse iyaguna waxay sheegeen inay isdifaacayaan oo ay ka hortagayaan qof kasta oo ku soo xadgudba deegaankaasi. wararkii ugu dambeeyay waan halkaasi ka helayna waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid kacsan markastana dagaal hor leh la filan karo. halkan ku soo biir muuqaalka sii faafi oo meel la gaarsiiyay mahadsanidin.